السلام عليكم ورحمة الله. قصada Colonel Harlan Sanders milkiilaha shirkadda KFC waxa uu dhashay 9kii Sebteembar 1890kii. 5 jir markuu waxa uu dhintay aabihii. 16 jir markuu wuxuu isaga baxay dugsiga. 17 jir markuu wuxuu ku guul dareystay 4 shaqo. 18 jirkiisii waa uu guursaday. 18 jirkiisii ilaa 22 jirkiisii waxa uu ku biiray ciidanka kadibna waxa uu la shaqeeyay iskaashato samaysa wadada tariinka. waa uuna ku guul dareystay. waxa uu isku dayay inuu ku biiro kulliyadda sharciga waana laga diiday. waxa uu iibgeeye u noqday shirkad waase uu ku guul dareystay mar kale. 19 jir markuu waxa uu noqday aabe haysta 2 gabdhood. 20 jir markuu waxa ka tagtay xaaskiisa waxayna ka qaadatay 2 gabdhood. waxa uu maqaayad yar ka noqday cunto kariye. sidoo kale waxa uu dhaqi jiray suxuunta. waxa uu ku guul dareystay isku day badan oo ku doonayay inuu inantiisa ku soo qaato, balse markii dambe waxa uu xaaskiisa ku qanciyay inay ku soo laabato guriga. 65 jir markuu waxa uu noqday howlgab maadaama uu gaadhay da'dii howlgabka. maalintiisii ugu horeysay howlgabka ayaa waxa uu dawladda ka helay jeeg ay ku qoran tahay lacag dhan $105. mar kale waxa uu la kulmay dharbaaxa adag. waxa uu go'aansaday inuu isdilo, waayo waxa uu arkayay inuu mutaysan inuu sii noolaado maadaama uu marar badan guul dareystay. waxaana uu hoos fadhistay geed si uu u qoro dardaaran, laakiin halkii uu dardaaran ka qori lahaa waxa uu qoray waxyaabihii uu fuliyay noloshiisa. waxa uu ogaaday inuu jiro hal shay uu ku wanaagsan yahay, kaasoo cunto karinta, taasoo aysan samayn karin cid kale qaabka uu isaga u sameeyo. waxa uu soo amaahday ama uu soo deynsaday lacag dhan $87. waxauna ku soo iibiyey baradho iyo waxoogaa digaaga. waxauna adeegsaday qaab karin isaga u gaar ah oo uu isaga hindisay. waxa uu garaaci jiray albaabada jaarkiisa si uu uga iibiyo. mar kale waxa uu la kulmay diidmo adag oo ugu imaanaysay maqaayadihii waaweynaa uu u geyn jiray jikinkiisa. in ka badan 1000 jeer ayaa lagu soo celiyay. maqaayadii 11aad ayaa waxa siisay haa waan ka qaadanaynaa. wixii intaas ka dambeeyayna waxa dhalatay shirkadda weyn ee maanta naqaano ee KFC. 88 jir markuu waxa uu noqday bilyaneer. shirkadda KFC-na waxay noqotay maqaaxida labaad ee dunida ugu weyn marka la yimaado McDonald. waxayna dunida ku leedahay in ka badan 22,000 oo xarumood oo ku kala yaala daafaha dunida. waxayna ka shaqaysaa in ka badan 136 waddan. haddii aad rabto inaad xaqiijiso guul, waxa kaliya aad u baahan tahay waa inaadan isdhiibin oo aadan ka rajo dhigin rabitaankaaga. riyadaada weligaada lagama weynaado. raaca riyadaada. waddo kastoo aad u martid maalinun waad xaqiijin doontaa. aamin tayadaada iyo naftaada. dhib ma lahan inta jeer ee lagu soo celiyo, waayo maalinun waa lagu aqbali doonaa. waad samayn kartaa. haa waad samayn kartaa. waad guulaysan kartaa. haa waad guulaysan kartaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.